wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaa soo kormeeray dugsiga sare ee Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Gacan Libaax waxaana kormeerkan ku helinayay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda Cabdiqaadir Cabdilaahi Jeex markii uu wasiirka wasaaradda waxbarashada uu gaaray dugsiga Gacan Libaax waxa halkaasi ku soo dhaweeyay maamulaha dugsiga Yuusuf Mataan macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi waxaana wasiirku soo kormeeray ardayda dugsigaasi oo ku jirtay imtixaanka midtermka ama imtixaanka dhexe ee ay dugsiyadu dalku ka qaadaan ardayda dugsiyada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa warbixin dheer siiyay maamulaha dugsigaasi Yuusuf Mataan waxaanu ka waramay horumarka dugsigu uu ku talaabsaday saacad wasiir waajibaadkaagii shaqada ku jira ku soo dhawow dugsiga sare Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Gacan Libaax iskuulkan tiradiisu waa 2002 arday weeye markaas 808 hablood ayaa dhigta 1202 ardayna iskuulka ayaa dhigta ka iskuulka qaabku uu sameeyay yahay hablaha iyo inamadu way kala qaybsan yihiin sectionna hablaha iska leh sectionna inamada ayaa iska leh marka intan ka bishan lixaad waxaan ileen inta la gaarayo waxaan loo qorsheysan in iskuulku laba albaab loo sameeyo albaabna habluhu ka baxaan albaabna inamadu ay ka baxaan systemka iskuulku shaqeeyo waa database way waa online system kan iskuulka rakaban marka attendance-ga ardayda waa la xaadiriyaa marka ardayga maqal oo kale waalidka ayuu gaaraa message ahaan marka waalid ardaygaagii hebel maanta iskuulka uu ka maqan yahay hadduu soo daahina oo tusaale ahaan 7 iyo 5 daqiiqo galaa 7 iyo rubuc albaabka waan xidhnaa marka hadduu ardayga soo daaho waa la yara ururiyaa deeta marka systemka la geliyaa marka waxa la yiraahdaa ardayga uu soo daahay wuxuu dhanba waa system isku xiran oo package weeye marka waa qolada wax naga caawisay shirkaddan isgaarsiinta ee Telesom naga caawisay waa lacag la'aan way free bay nagu siiyeen marka iskuulku kormeer buu leeyahay mentor u gaar u leeyahay saddex odayba mas'uulka ah marka waxaan isla gaarnay in 10 macallin gudi ahaan loo saaro oo dawladda la yiraahdo maadooyinkeedu soo diyaariya ka imtixaankan aan teeramkan galay 10 macallin ba soo diyaariyay macallinkii u dhigay kaliya wuu dhigayaa imku imtixaanka marka saaka laga qaaday isagii ardaygii dhiganayba mar bay wada arkay marka taasina waxay iyadana muslayna tayadii waxbarasheed ay ka qayb qaadanaysaa oo wadanda markastaba wasaaradii waxbarashadu himiladu ay tahay in fidinta maamulda jinta tayadii waxbarashada wadanda mar walba wasaaraddu ay saddexda higsi qaadatay marka higsi kamid ah tayeyntii baan anaguna ka qayb qaadanay oo nidibal sidii wax loo tayeyn lahaa falowgeeda yaragala marka sidaas wax u socdaan iskuulka waxa qayb lahaa laga qayb qaatay gudi arday hore ka baxday ayaa gudi is ururiyay ilaa lacag $60,000 ayay geliyeen iskuulkii